Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kulanti wanaagsan daawashada qiimaha iyo qadarinta iyo sharafta wanaga badan ku soo dhawaada wararkeena channelkeena kulana YouTube-ka ee hanaanka wararka waxa si toos ah ku soo gudbin doona wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya iyo sidoo kale caalamka qodobada wararka aad ku daawan doontaan galabtana waxa qayb ka ah isla markaana ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka halka la isla marayo madaxweynaha muddaxileed ku soo dhamaaday mudane maxamed cabdullaahi farmaajo aan shalay ka qayb galin dhaarinta xildhibaanada kooytoonaad ee dowladda federaalk ee Soomaaliya oo si rasmi ah lagu dhaariyay magaalada Muqdisho gaar ahaan jeedada Afisyoona isagoo madaxweynuhu dhagawi ahaan baan ka muuqan dhaarinta xildhibaanada waxaa ka qayb galay qaar kamid ah musharaxiinta doonaya xilka madaxweynaha Soomaaliya oo goobjoog ahaa munaasabada lagu dhaarinayay xildhibaanada cusub ee kooytoonaad ee dowladda dhexe federaalk ee Soomaaliya madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ololihiisa siyaasadeed oo ku iibsanaya xilka madaxweynaha Soomaaliya si weyn xilligan looga dareemaya qaar kamid ah madaxdii hore ee soo martay Soomaaliya oo kamid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo sidoo kale madaxweynihii hore ee dowladda ku-meel gaarka ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa kamid ah mas'uuliyiinta laga dareemayo awlahooda doorasho magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya oo ku soo baxay taliyii hore ee mas'uuliyadda istoonka qaranka Soomaaliya Faad Yaasiin Xaaji Daahir oo halka xoogan la geliyay xilligan muddo in dib loo fasaxay kursigiisa kadib markii ilaa ku dhawaad 300 oo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee Soomaaliya shalay lagu dhaariyay tendada Afisyoona kabi ahaan buu ka muuqaneen taliyii hore ee mas'uuliyadda istoonka qaranka Soomaaliya Faad Yaasiin Xaaji Daahir Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo kulankaasi ka qayb galay isla markaana ka hadlay ayaa waxa uu si rasmi ah u bogaadiyay isla markaana uu si rasmi ah u soo dhaweeyay xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo horay ikhlaaf xoogan u soo kala xagalay isaga madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Laftagareen isla markaana gabi ahaanba ay khalkhal xoogan galeen arrimaha doorashooyinka Soomaaliya kadib arrimahaas oo si rasmi ah loo xaliyay isla markaana ay sababtay in dib ay u soo gaaraan magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya xildhibaanada deegaan doorashadu tahay Koonfur Galbeed Soomaaliya isla markaana ay ka mid noqdeen shalay xildhibaanada lagu dhaarinayay tendada Afisyoona ee magaalada Muqdisho haddii ay golaan wararka naga soo gaaray akhbaaradka caalamkana waxa qayb ka ah ugu yaraan 340 qof ayaa ku dhintay daadad ka dhashay roob mihigaan oo ka daayay deegaanka iyo magaalooyin ka tirsan dalka South Africa roobkaasi ayaa la sheegay in ay hayeen roob aad u culus isla markaana ay sababeen dhimashada dad fara badan iyo sidoo kale bundoon iyo sidoo kale wadooyin weyn halbowle ku yaala wadankaasi Koonfur Afrika waxaana wararka naga soo gaaray wadanka Koonfur Afrika ay sheegayaan in khasaaraha uu geystay roobkaasi mihigaanka ay intaasi ka sii badan yihiin walow ay jiraan in magaalooyin kala duwan oo ka tirsan wadanka Koonfur Afrika gabi ahaanba xilligan si rasmi ah looga qaxay aqalka cad ee Mareykanka ayaa xaqiijiyay in bayaanka tilaaladii ka soo baxay madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden oo ku sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin laga yaabo in xasuuq ba'an uu ka geystay dalka Ukraine Biden ayaa sidoo kale waxa uu ku dhawaaqay in Washington ay u dirayso wadanka Ukraine 80 milyan oo dollar sidoo kale ay ku jiraan hub iyo rasaas iyo kaalmooyin kale ay iskugu jiraan iska difaacaan duulaanka uu ku hayo Ruushka wadankaasi Ukraine madaxweynaha Mareykanka ayaa sidoo kale Arbacadii madaxweynaha Ukraine la hadlay waxaana ay ka wada khadka telefoonka kala hadleen isla markaana uu sheegay in dalkiisa uu la diyaar yahay in uu duulaanka Ruushka ku hayo ay qayb ka geystaan isla markaana uu soo gaarsiiyay wadankaasi Ukraine ciidamo fara badan oo military ka socda wadanka Mareykanka si duulaanka Ruushka ku hayo Ukraine gabi ahaanba xilligan Mareykanka uga qayb qaato si dalka Ukraine loo difaaco xogayaha warfaafinta aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu ku hadlay isla markaana ka hadlayay arrimahaas uu sheegay in si rasmi ah oo Mareykanka uu duulaanka Ruushka ku hayo gabi ahaanba uu ka difaacayo isla markaana ciidamo fara badan iyo sidoo kale adduun lacageed oo aad u tiro badan wadankaasi Ukraine xilliga madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa si rasmi ah u sii daayay kuraasta deegaan doorashadooda ahayd Gado kadib markii uu shalay la dhaariyay ku dhawaad 300 oo iskugu jira xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudiyada doorashooyinka heer federaal waxayna ku dhawaaqeen in magaalada Garbahaare lagu wareejiyo doorashada 6 kursi ee gobolka Gado kuwaas 16 kursi ee gobolka Gado kuwaas oo lagu weecinayo degmada Elwaq isla markaana gobolka Gado si rasmi ah loo geyn doono dibadba waxa gudiyada doorashooyinka ee maamulka goboleedka Jubbaland ay soo saareen warqad ku saabsan xilliga la qaban doono doorashada lagu qaban doono Elwaq lagu wareejiyay madaxweynaha maamulkaasi madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa tilaaladii soo dhaweeyay nidaamkan dhinacyada kale iska hor imaan kara buuli in Gado iyo sidoo kale Elwaq labadaasi mid kale lagu qaban doono isla markaana si rasmi ah xilligan la isku waafaqay in Gado lagu qaban doono 16 kursi ee taala Jubbaland iyadoo murankaasi ka dhashay 16 kursi in Gado laga dhigay Elwaq ay isku qabteen madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo sidoo kale madaxweynaha muddaxileedka soo
qaaday mudane maxamed cabdullaahi farmaajo. 12 kursi ee taageerada ayaa ilaa hadda ka qayb galin dhaarinta sharci la dhaarinayo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka dowladda dhexe ee federaalka ee wadanka Soomaaliya. warbixinteeni waa dhagayta daawashada qiimaha iyo qadarinta sharafta wanaagga.